hiil qaran waxaa keenay waktiga. waxaa ku keenay waktiguna waxa weeye saddex amuurood oo ummadda Soomaalida ka maqan maanta oo ka baabaa. kow waxa weeye dadka ummad Ilaahay meel ku wada abuuray oo islaama oo neeftoodu is ogolaan jirtay, is yaqaanay, is jeclaa, meel ku wada socday, wixii ka xumaadana ka wada doodaya oo dhamayn jiray iyaga oo aan isbaabin. taasaa maanta luntay. qowmiyad wixii la oran jiray baa baabaaday. talabaad waxa weeye dowlad xafiisyadeedii, national institutions, ee shaqada ummaddu ay wadaagto iyo danta ay wadaagto fulinayay, taasuna maanta ma jirto. ta saddexaad ay soo raacdayna waxa weeye wax hoggaan la yidhaa oo xalaala oo kartilihiina maanta waddankii ma jiro. saddexdaasu markay isku ka raacaan waa balaayi baas. baaba maanta haysta dadkii boqolkiiba ugu yaraan 50 in ay gaajo iyo macalule haysana, taasay markhaati ka tahay. de marka adduunyadu jal kugu shubaymaysa waa inaad adigu isbadbaadisaa. badbaada doonkaas ayaa keentay hiil qaran maanta inuu noqdo xisbi cusub oo la furo. howlaha xisbiga hiil qaran markuu noqdo mid waddanka maamulkiisa ka qayb gala, howluhu way badnaan doonaan, laakiin waxa ugu waaweyn 5. kow, heshiisiis dhab ah in dadkii Soomaalida laga dhex abuuro. ilaan isnaaci iyo cadaalad xumadii iyo dad badan oo dembi laga galay waxay keentay qof walba caloosha inuu xumaan ku haysto. marka taa in la maydho oo dadkii dib loo heshiisiiyo shaqo weyn oo culus oo aad iyo aad u culus bay tahay in madaxa la saaro. waa kow. 2, in nabadgelyadii waddanka la soo celiyo oo ciidamo Soomaaliya oo dhab ah oo geed weyn oo la harsado oo dadka kala badbaadiya, ummadana ajnabigana ka badbaadiya, dadka shisheeyaha ay doonaya ummadda Soomaalida in qalin daaraan oo kala daadiyana ka badbaadiya, inakana ina kala badbaadiya oo amnigii soo celiya, iyagana xoolo iyo aqoon la geliyo dhab ah. taasina waa talabaad weyn, amniga dadkii soo celinay. ta saddexaad waxa weeye in dhaqaalihii waddanka la soo dhiso, si shaqo dadkii ay u helaan, dhalinyaradii shaqo ay u hesho, dadkii baayac mushtariga ahaa shaqo ay u qabtaan, oo de markaa waddanka noloshiisii dhaqaale ahaan ay kor u soo kacdo, oo wadooyinkii iyo electricii iyo biyihii iyo caafimaadkii, dhakhtaradii, dhulkaas oo dhan in shaqo weyn laga qabto ayay u baahanta. beerihii, kalluunkii, waxaasoo dhan, macdanta waddanka ku jirta si wanaagsan in loo baadho waa degdeg iyo u baahanta, oo khayraadka waddanka dee aynu hantino. ta ku xigtaa waxa weeye dadkii Soomaaliyeed in hawl loo galo ka shaqaysa sida adduunyada kale dib la iskugu barayo, ya oo siyaasadii adduunyada lagu baranayay inakana layna barayay, iyagana aan baranaynay laga soo shaqeeyo, oo wadamada waaweyn ee adduunyada, kuwa wadamada islaamka, wadamada Afrika, Europe, Asia, in la gudagalo oo shaqo cusub laga furo oo waddanka wax u qabata. waxa weeye ta ku xigta. labada ugu dambeeya waxa weeye labada ugu waaweyn haddaad eegto bini aadamka naftiisa, waa aqoontii iyo caafimaadkii. labadaasuna waxay u baahan yihiin xoolo weyn, karti weyn, iyo iyadoo isha lagu hayo in dadka caafimaadkoogina dib loo soo dhiso, iskuuladii iyo aqoontiina dib loo soo dhiso. xisbigan hiil qaran ummadii Soomaaliyeed ee ballaadnayd ee waddanka gudihiisa joogtay ee dibadda joogtay kaalmo weyn bay uga baahan tahay. waa iyaga la-aantood ma dhaqaaqaya xisbigani. waxaa looga baahan yahay marka dadka Soomaalidu inay gartaan horta xisbigani inuu yahay mid dad Soomaaliyeed ay abuureen oo cid kale aanay wadan. ummadda Soomaalida tacabkeega iyo dhididkeedana ku aflaxaya oo cid kale aanay waxba ka qaban karin. marka waxaa looga baahan yahay ummadii Soomaaliyeed meel walba ha joogtay, rag iyo dumar, ku weyn iyo ku yar, degmo kasta fadhi, inaad horta xisbiga ogaato wuxuu yood ka warqaado. af Soomaali buu ku qoran yahay, af Ingiriisi buu ku qoran yahay, ka warqaado oo ogow wuxuu yahay. talabaad waxa weeye inaad soo gasho xisbigii. waxa lagu soo geeyay waa wax yar weeye aad soo gasho. ta saddexaad waxa weeye markaad soo gasho adiga iyo qoyskaagu aad soo gashaan inaad inta kale aad gaari kartaan warkiisa aad gaarsiisaan, risaalada aad gaarsiisaan, si ummadii Soomaalidu ay u wada ogaato, oo qof walba halkiisa أو صفير كان نقضوا حزب جاك وكير تكوي حكتها واحد ويدي حول إن للجلية ده حزب جي مرة دقيقة هذا يسكع عقبصه أي كل سنة هاي أو صومالي الله أبو رئيس صومالينا أي لا ده تودي كين يجيب كين أمبا وحقق بنكر
marka qof walba shilinka yareed hayso inaad soo geliso xisbiga si wadankii badbaadadiisii loo galo iyo dee karti waxaad haysan inaad banaanka soo dhigto intaas ayuu xisbigu dadka soomaalida uga baahan yahay ummadii soomaalida markaa noo soo gabagabeynaya waxaan ku leeyahay waxa yimid waktigii aynu istaagi lahayn imanka jilbahaynu dhulka ku hayna aynu istaagi lahayn ummadii soomaalidana maanta waa loo baahanya waynu isku baahannahay dib aynu isku jeclaano diinteenii iyo islaamnimadeenii iyo soomaalinimadeenii aan soo celino xisbigaa hel qarana aan wada yeelana dhaqaaqoona la dhisa